madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xalayto waxa uu soo saaray casuumad uu ku casuumayo madaxda dawladda xubnaha ka dawladda federaalka in la isugu yimaado shir 22ka bishan Maarso oo ku beegan Isniinta. Shirku wuxuu ka dhici doonaa Afisiyoni Center, xarunta Afisiyoni oo ay leeyihiin ciidamada cirka Soomaaliya. xarunta Afisiyoni Center ayaa loo diyaariyay waxaana hawsha qaban qaabadeeda iyo diyaarinteeda ku hawlan xafiiska ra'iisul wasaaraha. waxaan rajaynaynaa inaan dalkani oo inoo ajenda noqon doonta 3 kelmadood oo ah doorasho. waxaan runtii aad uga xunnahay iyadoo dalku doorasho aadayo in siyaasiyiinta qaar ay ku mashquulaan inay sameeyaan isbahaysiyadaas oo ah doorasho la dir. isbahaysiyada doorasho la dagaalanka ama doorasho diidkaahi waxay inagu celinayaan jid qaldan iyo jid dib u dhac. waxaynu ka soo gudubnay caqabado badan. caqabadaha aynu ka soo gudubnayna waa tan hadda guusheeda ay muuqato ee ah dalkeennii maanta in loo arkayo dal ka soo baxay burburkii iyo jabkii iyo qaranjabkii oo u soo gudbaya dal dhisan oo hay'adihiisa ay wada dhisan yihiin dastuurigaha inta inoo dhimanna way inoo dhammaystirmi doontaa.